kulanti wacan u wanaagsan daawadaashana qiimaha badan meel kasta naga maqlaysaan waa qaybtii lamaad ee barnaamijkii faaqidaada wararka ugu dambeeyay Soomaaliya beesha Mariixaan oo degta gobolooyinka Jubbooyinka ee gobolka Gada ayaa doonaysa inay ka faramaroojiso xukunka madaxweynaha Jubbaland Axmed Madoobe oo muddo 12 sano xukunka ku haystay ciidamada wadanka Kenya oo ku sugan magaalada Kismaayo iyo nawaaxigeeda. Dadka gobolka ka soo jeeda Gado ayaa doonaya iminkan inay kala wareegaan xukunka oo ku tardhahay madaxweyne Axmed Islaam taasoo siyaasiyiintii taageersanaa beesha Mariixaan ee gaar ahaan ka soo jeeda gobolka Gado ay ka hor yimideen xukunka Axmed Madoobe iyo dad Axmed Madoobe beelahaan ka soo jeeda, taasoo u muuqato in Axmed Madoobe ay waqtigiisii ama xukunkii aadka u dheeray ee Jubbaland uu soo gabagaboobi karo kadib madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya ayaa waxa la sheegay asaguna inuu doonayo inuu ka takhaluso ninka xukunka aadka u dheer ku haysta muddada 12 sano magaalada Kismaayo ay ku ilaalinayaan ciidamada wadanka Kenya, taasoo ay dadka ku eedeynayaan inuu yahay nin aanan 12 sano iyo something uu ku sugnay aanan magaalada Kismaayo aanan goobi ahaanba gaarin guulo waaweyn oo la taaban karo la dagaalanka ururada argagixisada. Waxaa la sheegayaa in magaalada Kismaayo meel u jirta 60 kiiloomitir ay ku sugan kooxaha wax qarbuda halista badan, balse uu filada uu ku sugan yahay kaliya gobolka magaalada Kismaayo gaar ahaan madaxtooyada oo muddo 12 sano ay sii cagaynayso 13 sano uu ku sugan yahay horumar uusan gaarin. Dadka siday ku eedeynayaan madaxweynaha Jubbaland Axmed Madoobe, dadka deegaanka ayaa iminkan doonaya inay kankol farale isaga qabtaan ninkaas xukunka ugu dheer ee gobolada Soomaaliya heesta muddada 13 sano gaaraysa ku sugnay magaalada Kismaayo aanan haba yaraatee dalkana ka xureyn kooxaha argagixisada siday hadalka u dhigeen. Kismaayo ayaa wax meel u jirto 60 kiiloomitir waxa ku sugan ururka Al-Shabaab ee halista badan, balse Axmed Madoobe waxaa la sheegay inay ku ilaaliyaan ciidamada wadanka Kenya magaalada Kismaayo iyo nawaaxigeeda. Madaxweynihii hore Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa dagaal baahan la galay gobolka Gadana wuxuu geeyay ciidamadii ugu badnaay ee dowladda federaalka ee Soomaaliya, halkaas oo ku doodayay inuu xuduudaha iyo amniga qaranka ay xaq u leedahay dowladda dhexe ee federaalka Soomaaliya. Wuxuu sheegay inay dhalashooyinka iyo xuduudaha iyo lacagta ay xaq u leeyihiin, balse Farmaajo ayaa waxaa lagu eedeeyay in uu qabiil ahaan u geeyay halkaas. Farmaajo ayaa arrimahaas ganafka ku dhiftay, sheegana in dowladda dhexe ee Soomaaliya ay waajibaad ka saaran yahay ilaalinta xuduudaha wadanka. Axmed Madoobe ayaa u muuqataa marka siyaasiyiintii ugu badnaay ee aadka u waaweynay ee gobolka Gado iyo gobolada kale ee Jubbaland ka soo jeeday inay gebi ahaanba ka hor yimideen kadib markii uu Axmed Islaam oo xukunkiisu aad u dheeraaday. Dadka ayaa sheegaya inay tabinkan ay tahay in la siiyo gaar ahaan beesha Mariixaan ay hogaaminayaan Jubbaland muddo 13 sano ay hogaaminaysa beesha Ogaadeyn, taasoo keeni karta isku dhacyo dhinacyada ah. Madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya ayaa la sheegaya inay gadaal ka riixayaan inay ka takhalusaan hogaamiyaha xukunka ugu dheer ee ku haysta Jubbaland, taasoo dhali karta dagaal iyo iska horimaadyo hor leh ee gobolka ka dhaca. daawadayaal warkan intaas ayaan kusoo gabagabaynaynaa. Amaan Allah.